كسر دوالة برنامج كيني عنا كرنتا أنا جوا شيف عبد العزيز إسعاف وعندي صوب النجية حبكة وعن النص بيو تون السلطة ده بس أشوف حايت هاي تون السلطة بحوك قومية تون السلطة وحوك قومية هاي ملاين النوع اللي يقانو تونة وقسعها لا لا بحب وقسع فيها كميرين mixed vegetable خضار وسكر دري وحوك قومية هاي بيزل عرفيها بيزل لو يقان وحوك قومية هاي بصل وحوك قومية هاي تفاح وحوك قومية هاي قجار وحوك قومية هاي قجار أما كمبر وحوك قومية هاي لمدنان عصبو وحوك قومية هاي سبينش وحوك قومية هاي إيطاليان سيزنينج أما دي كله كبسل عليه درايد لقى دقي يورجانو وعلاج وسكر دري وحوك قومية هاي هيد بيبرز أو درايد وحوك قومية هاي وورشستر صوص وحوك قومية هاي صويا صوص أنت هاي سكوترية waxaan kaloo dhinaca kale aan soo subsaday hore u soo subsaday waan in siin doono weedka soo socda ama weedka tan hadda waqti helna oo alle ilaahay yiraahdo sooska nooca aan ka subiyay yellow pepper waxa weeye waa barbarooniga nooca jaalaha waa ka subin kartaa cagaarka waa ka subin kartaa gaduudka waa ka subin kartaa sooskan waxaan ka subiyay barbarooniga jaalaha habka sooskan loo subiyay waxaan siin doonaa weedka tan hadda alle aad iyo aad u qurxoon yahay صوص كاسو نوعيس اللي يراهدو يلو بيبر أما ريد بيبر كلي ويقول طبعا سيدونا هدو على إن شاء الله تعالى وأنا وجدان هذه هذا الكحروني هاي هذا معي ما شاء الله فيرتست هذا سيدونا هدو على يراهدو واحد كلورين عكلا أكو هايستا وكل بريد كرامبس يبر وحنا سوقاتي نيايو يعني أيام سوقاتي إحنا وحنا كنجليي سبينج إن عكرنا وحنا كنجليي بصل بصي إسلاء وكوي سي مارة برنامج كان هدو توقفين معناها إن الأبتايزر كان هدو توقف صوب حياة مارة الأبتايزر آديات وقرآن يعني بصشة يعني يدو إن إسلاء كين مركز كونيس نيكشور بصل وين يعني وين إسلاء إحنا أيام كنجليي سا إن محلي هذا سبينج كي si waxa u saaraysaa saddex caleemada waaweyn oo si istaafe toothpick waa la geli kartaa xarig waa ku xiri doontaa waa ku xiri kartaa raad si doon hadda ku soo dhawaada barnaamijkeena cunno karinta loo magac baxay cunnadii wacneed oo ka daawaneysay Somali Food TV meel alla meesha joogtaan daawasho wanaagsan waxa aan soo qaatay digsi waxa aan shubtay saliid markay kululaatana waxa aan ku daray basasha markay si fiican u shiilmato ay jilicdo waxa aan ku darayaa mixed salad iyo waxaan ku darayaa basil waxaan kale oo aan ku darayaa hal qaado oo coriander xawaajka nooca loo yaqaan coriander waxaan ku darayaa tufaax aan yaryareeyay iyo qajaar waxa aan soo qaatay malaygii tuunada ahaa oo gasaca ku jiray biyihii iyo saliidii dhacaankiisa ayaa si fiican uga miiraysaa kadibna waxa aan ku darayaa Italian seasoning ama se hadii kale coriander iyo oregano oo maaragtay qalalan basbaas oo dried oo qalalan waxa aan soo qaatay basal oo si isleeg u gooyay iyo yaanyo aan si isleeg u gooyay dhaxda ayaan waxa aan ka gelinayaa spinach ayaan dhaxda ka gelinayaa kadibna waxa aan soo qaadanayaa xarig afarta dhinac ayaan kaga xirayaa basasha iyo yaanyada wax shiilaya waxa aan ku shiilayaa saliid waxaana aan marinayaa ukun iyo maaragtay bread crumbs hodhootana waxa aan yeelayaa xariga waa ka furayaa kadibna waxa lagu cunayaa maaragtay tuna saladka digsi ayaan waxa aan ku shubtay saliid waxa aan ku darayaa spinachki ilaa maaragtay spinachka oo ka jilco wax biyaha yaraatay aan ku darayo ma jirto dhowr qaado saliid maan ku daray kadibna waxa aan ku darayaa markuu wilted oo noqdo soy sauce iyo waxaan ku darayaa Worcester sauce iyo iyaro cusbe waan walaaqayaa waxa habboon maaragtay spinachka biyo ayuu dhalayaa biyo waxba ku dari maayo oo jeedaan biyo ayuu dhalay
waxaan ku darayaa in yaro maaragtay basbaaskii maaragtay red pepperka ahaa driedka ahaa iyo waxaan ku daray Worcester iyo waxaan ku darayaa maaragtay soya sauce iyo in yaro cusbe 3 daqiiqo ayaan qaadada isla qaadsiinayaa dhinaca kale waxa aan soo qaatay yaanyadii iyo basashii waxa aan dhex gelinayaa burka ayaan si fiican u dhex gelinayaa kadibna waxa aan yeelayaa ukuntii ayaan dhex gelinayaa waan maaragtay si fiican ukunta maaragtay labada dhinac kadibna waxa aan dhex gelinayaa oo geesaha ka marinayaa iyo dhinacyadaba bread crumbski saliid ayaan ku shiilayaa dhinac walba ilaa uu ka guduuto dishkan aad iyo aad buu u macaan yahay basasha iyo yaanyada iyo spinachka dhexda la iska geliyay marka make sure marka aad shiishid inaadan xariga ku hilmaamin xariga ka fur kadibna maaragtay presentationkiisa sixniga maaragtay saladka waa la dhigi kartaa waxa aan soo qaatay sauce-kii aan ka suubiyay barbarooniga aan ka suubiyay waa la siin doonaa soocan noocan maaragtay sauce-ka barbarooniga qaabka loogu suubiyay wiilka dambe hadduu alla idmo sixni ayaan soo qaatay sauce-kii ayaan maaragtay dhexda ka dhigayaa qaadada ayaan la marmarinayaa kadibna waxa aan yeelayaa yaanyadii oo xariga aan ka furay iyo basashii ayaan dhexda ka dhigayaa waxaan kale aan soo qaadanayaa tuna saladkii dusha ayaan ka saarayaa oo si isla eego aad iyo aad u qurxoon oo si presentation fiican u siiyo ayaan waxaan yeelayaa dusha ka saarayaa waxa aan soo qaadanayaa spinachkii oon maaragtay aan ku soo suubiyey soya sauce-kii iyo Worcester sauce-kii ayaan dusha ka saarayaa spinachkii ayaan hadda soo qaadanayaa dusha ayaan ka saarayaa waxaan kaloo aan dusha kaga sii darayaa aan geesaha kaga bilbilayaa si uu u siiyo maaragtay texture iyo si uu u siiyo maaragtay qurux aad iyo aad u qurxoon sauce-kii ahaa barbarooniga aan ka suubiyey waa la siin doonaa qaabka loo suubiyo noocan sauce-ka dusha ayaan kaga daray saladkii waa dhameeyey spinachkii ayaan dusha ka saaray kadibna waxa aan dusha kaga sii daray Italian seasoning oo qalalan ayaan dusha kaga daray waxa aan kaloo soo qaadanayaa 3 caleemood oo maaragtay spinach ayaan dusha maaragtay ka saarayaa waa ku qurxinayaa iyo cherry ayaan ku qurxinayaa si isleeksi u siiyo qurux maaragtay aad iyo aad u fiican dishkan aad iyo aad buu u macaan yahay waxaan kaloo aan yeelayaa aan dusha kaga darayaa basbaaska nooca loo yaqaano maaragtay red pepper oo maaragtay flakes oo dried aan dusha kaga darayaa waxaan kaloo aan soo qaatay aan soo goostay liima dhanaan oo aan maaragtay spinachka maaragtay dusha maaragtay aan ka maaragtay dusha ka saarayo maaragtay saladka si uu siiyo qurux waxaan kaloo aan yeelayaa wiilka dambe hadduu alla idmaa waxaad Somali Food TV ka daawanaysaan meel alla meesha aad joogtaan aad ka daawan doontaan barnaamijyo cusub oo ay ka mid yihiin qaabka loo sida loo suubiyo 4 nooc oo maaragtay cream de caramel oo maaragtay cream de caramel 4 nooc qaabka loo suubiyo dishkan waa ujeedaan waan dhameeyay so far it's really very beautiful aad iyo aad buu u qurxoon yahay aad buuna u macaan yahay maaragtay isku day isagoo kale inaad soo disid anigoo ah Sheekh Cabdicaziz Dhicis barnaamijkayga aad ka daawanayseen Somali Food TV meel alla meesha aad joogtaan waa mahadsantihiin waxa kaloo aad ka daawan doontaan YouTube-ka iyo waxaad kaloo ka daawan doontaan via maaragtay CTV iyo waxaad ka daawan doontaan via SPNN television anigoo ah Sheekh Cabdicaziz Dhicis wixii email iigu soo dira Somali Food @somalifood.tv meel alla meesha aad joogtaan waa mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu